waxaan ugu jeclahay heesayga cimaamada ku tuura ha meelaha waxa waaye qof hadda reer gaaris cimaamada ku tuuraan markaan soo galay gorofo self continue guriga shadan markaas suuqa soo istaagay aw ka waday qaralaasiyo markaas suuqa soo istaagay waxaan ka gabdha shadan markaas waxaan intan waan oo foodayna waxaan dhahay baaros ma soo tilmaya he waa qaraar salaan leh qaraar salaan bay loo basala reer gaaris waa iga badisay marka cimaamada ku tuuray ha marka wax walba waxaan jeclaa aniga ma jecli qof inuu cimaamadeeda ku dhago cimaamadeeda qof ka ku dhago ana wax soo garbaxa cimaamadaada oo kugu tuuray thank you sharafi karaam aad u mahadsantahay السلام عليكم دمان أصحابتي كحرن معليت أوفيشال أدنى السلام يا ما أنتوا حق ربيه فيديو ولكن بيج برو كافي أيضا سود بينا من كورنت نقول قلنا برامج كذا شرفي كرامة صاحبك معليتو أدنى أوفر حسن هاي إن يوتيوب كاي وصل ويسيد سلوك إن جارسي وصل ويسيد شرف بقى تايها جارسو ما كان أركي سودوي تديرهم يا عزومات فرح طبعا أرجني horta waxaan tusayna aan joogno magaaladeena sidoo kale farxad gooni ay tahay inaan ka soo muuqdo channel ka asaasan ka dhisan magaala madaxda waqooyi bari ee Gaarisa markii baan markaan arkay magaalada waxaan u bixin saaxiib macane gobolkii xaniyaha macna gobolkii ragga amal wayno u faahday dad adaga joogo dhalinyaro inaba caadi ah marka ma sha Allah waan ku dhawahay channel ka saaxiib macane aad baan ugu dhawahay channelka saaxiib channelkaaga Macalito official sama iyo dhamaan Gaarisaba caasimada Gaariso iyadana aad baan ugu dhawahay okay marka barnaamijkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay big bro ayaan ina video 10 su'aalood uma adkina laakiin waa 10 su'aal ina ka baxaysa hay dar hay barnaamijkan bixina insha Allah big bro saashu waxay tahay magacaaga oo saddexan iyo halka aad ku soo barbaartay أولاً أنا أعرف ما اسمك عربي عرفت برتنا هذا النقطة ما هذا عرفتي اللي مشوقين هذا النقطة بدل ما جاي سوشيال ميديا ما جاي دمستنا كمان شيء لكن هذا لقى ما مارمان نكى مجال أو مارتي أو ديجان كوها دتك صوت ويناي أو مارتي سوار قاضي فوتوغرافر كي فيديوغرافر كي إنه يوجد سؤال هذا ما أفرح صناعي dadka ku xiran channel kaagana aad iyo aad u salaamaya gacmaha waa falfoof niidayna ka salaam walaalayaal share gareeya oo subscribe gareeya waa maasantiin su'aasha haddaan u soo laabto ah big bro magacaaga oo dhameystiran magacayga saxda waxa la yiraahdaa Cabdinuur Cabdi Hiirad baa la yiraahdaa waxaan waqti badan ku soo qaatay aan ku soo barbaaray xerooyinka qaxootiga dadaab ee Xagadheer marka mid labaad waxay tahay goormee ayay kugu dhalatay inaad wax disho ama fikrad inaad noqoto dilaa horta waa igabatay ilaa waxay wariyaa ahayd waa igabatay magacaas wadatay wariyaa ama iska ilaa saacado su'aalaan aad weydiinayso waa very tough waarun su'aasha horta wali leemo weydiin hataa idaacadaha TV-yada lagama weydiinin waa su'aal aad iyo aad u qurux badan marka ninka nin culus Soomaaliyeed ku weydiiyay ha waa dareemi karaa marka niyahow waxay ugu dhalatay xilligan iskuulka dhiganayay xiliyada iskuulku waxa jiro group mise club ah jiro high schoolka club inaad ku jirtida fiican marka xilliga high schoolka ana wax ku jiro waxa la yiraahdo journalism maartay writers club wax la dhaho xilligaas marka aan dadka waxaan shactirooyin u jeedin jiray ha xilligaas aan ogaay marka inaan dadka maartay wax u sheegi karo wax ka geli karo waxaan jirna taan waxaan jira ugu dhigi karo markaas ogaay ha saas daacad waxa waaye higsi intay lag ayaad doonaysaa inaad ka gaarto fanka iyo haybada adiga aad macnaha leedahay tankiisa badan soo qaaday thank you saxmaan waa dareemaya sharafka karaamo taasna way dheertaa jilinka waxaan rajaynayaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo Somali industry film aan higsanaya inaan sameeyo dalad ay Soomaalida ay ku midaysan tahay wax ku soo saaraan filmaan iyo maartay dad qofkii hal abuur leh iyo qofkii maartay entertainment dadka madadaalin karo ilaa meesha saxiixsan hadduu ilaahay yiraahdo ma sha Allah su'aasha afraad intee aad jeclaan lahayd inaad u dalxiisto
oh my goodness la ilaha marka dalxiiska dadka sida iskugu gaarnay jaanis waaye muhallinta waxyaaba badan ka soo rogay in dalxiis geeyo waa laga yaabaa may waa laga yaabaa may laga yaabaa Soomaali inuu geeyo dadka daawanayaan dad badan oo madax ku xiran leeyahay waxaan rabaa kalamado aan rabaa meeshaas rabaa in la geeyo vacation fasax mase baashaal halkaasaan jeclahay كل ده كلام برا كده هنا يعني نك هذا أركتين بيج برا على سود بيجو فيزا على يسوع ترحتان أسكر على هذا اسمه فيزا سوق هذا أود نكينا إن شاء الله إن شاء الله سؤال شنات يا كود يرجليه إن هست أم هسا إن المقطمنا إن وارون تعرض إن مركي اللي يرادو إن مجاجلسته مارتي فيديوغرافر مارتي صحافة مركي اللي يرادو وحصودن iyo qofka abwaan wax dhan waa hal dalad marka kala badbaxo farqeyle waa geed oo xidida leh ku fahantays soo marka maadaama aan ku jiray majaajilista qofka inaan madadaaliyo markii dambe waxaan dhahay inaan ku biiro fanka inaan ku biirana waa waxaan la imaaday laakiin waa lagu dhiirigeliyay dad ay ugu horeyaan Kaafi Cabdi baa ugu dhiirigeliyay erayadii Kaafi Cabdi baa maartay qayb ka ahaa laakiin aniga la imaaday anigana sidoo kale waxaan keensaday erayo oo aniga abwaan mi waxna ma qoro laakiin waxaan jeclahay inaan eray la imaado eraygaas hadda gobolkii maartay xaniyaha gobolkii ragga ee Gaarisa marka hadda dhahayo kale eraygaas oo kale waxaan liga soo sameeyaa sida la soo sameeyaa sida lagu keeno marka heesaaga inta aad qaaday aad ugu jeceshahay macnaha ma yartaan horta waa iga maanta saan ugu weyn marka laakiin ma lahan waxaan ugu jeclahay heesayga cimaamada ku tuura meelaha waxa waaye qof hadda reer Gaaris cimaamada ku tuuraane markaan soo galay gorofo self continue guriga shadan markaas suuqa soo istaagay aw kay waday qaralaasiyo markaas suuqa soo istaagay waxaan ka gabdha shadan markaas waxaan intaan waan oo foodayna waxaan dhahay baaros ma soo tilmaya hee waa qaraab salaan leh qaraab salaan bay kama basra reer Gaaris waa iga madisay marka cimaamada ku tuuri marka wax walba waxaan jeclaa aniga ma jecli qof inuu cimaamadeeda ku dhago cimaamadeeda qofka ku dhago ana wax soo garbaxa cimaamadaada waan kugu tuuraa thank you sharaf karaam aad u maasantahay okay su'aal lixaad midabkee u jeceshahay midabyada ana waxaan jeclahay black iyo blue blue waa xirnahay blue iyo black ragga waa blue iyo black midda toddobaad waan soo gabagabeynaya kugu adkeenin maxaa ugu la yaabka badnaa intii aad wax jelaysay maxaa ugu yaabka badnaa jilinka inta ku dhex jirmeen jilinka waxay ugu yaabka badnaa niyahow waxyaabo badan ugu yaabka badnaa sababtoo markaa wax jelaysid adoo dhan mararka qaar waxaa lagu leeyahay waxaa iska dhigtaa qof dhaadhaan iska dhig mar waxaa lagu leeyahay qof oo wax balwad cunaaya iska dhig oo jaad hadday noqoto hadday sigaar noqoto marna waxaa lagu leeyahay film waxaa jishaa ee daxaymadeeda oo kale daxaymadeeda markaa jilaysa nina naagtiis laga soo dilay camal waxaa lagu leeyahay jil waa inaad jili kartaa may haddaa dhaad macnaheeda waxay tahay waxan ma ahan wax adi heybada aa leedahay oo waa qasab baa ku imaatay waay laakiin haddaad jishid waa hobbigaagi waa wax adi aad weligaa ku riyon jirtay oo dhib walba iyo dheef walba inaad eber obstacle inaad ka hortagta qayb walba inaad kusoo bixi yes marka su-aal sideedaad fanka macnaha fanka hadda aad ku jirto gabadhee ayaad jeclaan lahayd inaad hees la qaado ama la soo haysto inta fanaaniinta hadda لكن لا اله الا الله لكن waxaa yiri saaxay wax sugay wala isla fiya ay smuuta maxrade fanaanada hees la qaadin fanaaniinta ku jirto hadda fanaanada macnaha jeclaan lahayd hees la soo qaado fanaanada ka diyaarsan tahay soo qaadin fanaanad oo soo baxaysan oo ay soo baxaysan oo aan jeclay Soomaa waxa waaye Farxiska fanka kasi fadhiisanaysa laakiin maya farxiska hobigayga iyo kasana jeclay markaas inta ka fadhiisan hal xabo dhiibay ala qaaday hada inta ka salaamayna kulli kuwa kala xumaan ma ahan sharafi kala waa misla doorkiisa okay su'aal sagaalaad maxaa caqabad ah oo aad kala kulantay markaad bilaabayso baraha bulshada maxaa caqabad ah kala kulantay caqabad badan horta kala kulmay waxa kamid ah Soomaalida badana inay yaqaana wax la yiraahdo hadda sidii hormaa
maalinba maalinta ka dambaysa soomaalida waxbay la qabsanayaan berigi hore waxaan arki jirnay gabdhaha maaragtay iyo gabdhaha sibil gabdhaha markaa tirada waxna la jiro oo kale inay dhihi jireen ay dhihi jireen laakiin hadda wixii waa lala qabsaday social media wuxuu noqday wax iska caadi ah muhiimadda waxay tahay inaad soo kordhisid waxa oo maaragtay legacy oo sharaf ah wax sumcada inaad ka tagtid wax wanaagsan oo wacyigelin ah oo maaragtay wax oo dadka ay ku daydaan oo wax ka qaataan inaad soo saartid unbaa muhiim ah marka aniga waxa kala kulma waxa waaye soomaalida marka meel maraya oo kale waxay leeyihiin adoo maqlaaya waa leeyihiin waa kana kii markii kaamirada hadda madow yahay maxaa kaamirada waa caddayn jirtay mid kale waxa leeyahay alla ninka waaba nin oo maartay oo hataa umaleyn jiray waa shuluqay kuwa waxa kale adoo maqlaaya macnaa erayna kuma dhahayaan waana maqlaysa waxay ha waka marka qaar saan inta marka soo jeed isha farta iga jirta isha iska bixina farta ma baa isha gala buural noqo waxbaan rabay gabadhan soo jeed waxa soo kala qabad oo maartay banaanka marka la joogo هذه السؤال شيء يقول بيسي أنا من الطبانات معناها أنت كحرا مهاليت أوفيشيال حاو باقنات أصحابت كحرا. أوكي ثانك يو. أصحابت كحرا مهاليت أوفيشال وحندي لها ولا ريال مفروض إن فيديو لصدوبه كاميرا لصوقاته نال لصوقاته فكرة أو قف كجد مكرت إلا كانوا أو قف كنا معت لو يدي كرايو وقت اللي جريو lacag loo sarfo oo maartay MB mase internet oo lagu soo upload gareeyo waa juhdi dadaal badan marka waxay dhihi lahaa walaalayaal hadii familka oo Mahalit official inaan maartay dadaalkin halkaas ka sii wadaan dhiirigelisaan barnaamij walba oo soo saarana inaad share gareysaan sidoo kale inaan maartay gar igartaro inaan madax saartaan fiican waa nin walaalkiina waa nin maartay soo diyaar ah inuu soo saaro fikradiisa inuu ku soo bandhigo meesha fikradiisa marka intaas ay idinkaga tagayaan sidaas aan noo balana insha Allah bilaad اوكي اصحابتي مالته اوفيشال هذا ما سنتين بالبرادين هذا ما صار انا شرفي كرامه هذه هذا دبا ودغتay marka barnaamijkeena halkaas ku xiran yahay insha Allah saacado ay ka tirsan sanad kale baba wallah